ugu horeyntii waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan waxaan alla ka baryayaa inuu noo fududeeyo geedi socodka dawladnimada ee marxaladan kala guurka ah muddooyinkii la soo dhaafay waxaa dalkeena ka dhacay xaalado aan qaran ahaan noo qaadmin bulsho ahaan noo qalmin oo dhammaanteen ku khasbannahay inaan qayb ka qaadano xal u helidooda waxaan aad uga xumahay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan xafiisyada dalka ugu sareeya waxyeello xoog leh oo dhinac walba ah dalka soo gaarsiiyay waxaa luntay xasiloonidii siyaasadda waxaa dhaawac gaaray dhaqaalihii dalka waxaa halis galay hay-adihii ammaanka waxaa sii laciifaya rajadii beesha caalamku ay ka qabtay geedi socodka dawladnimada Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu khilaaf ku saameyn ku yeeshay habsamo socodka doorashooyinka waxaana shaki ku jirin in haddii khilaafka cidi ka macaashtay ay tahay kooxaha argagixisada ah ee ku howlan daadinta dhiigga iyo hoos u dhigidda sharafta Soomaaliyeed sidaas daraaddeed waxaan ku baaqayaa in sida ugu dhaqsaha badan khilaafka loo soo afjaro si dalka looga badbaadiyo xaaladaha qalafsan ee hadda taagan Soomaaliya talaal kama qabto wixii ka dhacay Afghanistan oo aad ogtihiin in markii ay dunidu ka quusatay ay isaga tagtay kadibna ay dib u qabsadeen Taliban si aan taas uga baaqsano shacabkeenana ugu adeegno duniduna aanay nooga quusan waa inaan muujinaa isu turid isu tanaasul dalka iyo dawladnimadana waa inaan wax u hambaynaa xaaladda adag aan xilligan ku jirno hal dariiq oo keliya ayaa looga gudbi karaa waddo labaad ma furna mid saddexaad ma furna halka dariiq oo keliya oo inoo furan waa dariiqa doorashada ra-iisul wasaaraha madaxda dowlad goboleedyada waxaan ugu baaqayaa in la dedejiyo doorashooyinka iyo in wax kasta oo kale dhulka la iska dhigo oo mudnaanta la siiyo doorashada si dalka looga saaro xaaladdan cakiran sidoo kale guddiyada loo igmaday doorashooyinka waxaan ugu baaqayaa inay shaqadooda u dedejiyaan si hufan beesha caalamka waxaan ugu baaqayaa inay la garab istaagaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo guddiyada doorashooyinka dhaqaalaha aan looga maarmin hirgelinta doorashooyinka dalka arrimaha ka soo cusboonaaday galmudug maaha kuwo la aqbali karo maaha kuwo la filayay mana aha kuwo u daneynaya galmudugtii wakhtiga iyo tacabka badan lagu bixiyey waxaa nasiib darro ah in markii ay reer galmudug muddo dheer kadib dareemeen yididiilo iyo horey u socod in maanta ay kooxa hubaysan qabsadaan deegaano nabad ah oo colaad iyo barakac ay geliyaan bulshada deegaanadaas lana hor istaago horumarkii socday allah u naxariisto dadkii ku naf waayey una dhib yareeyo kuwa ay dhaawacyadu ka soo gaareen colaadaas si aan leexleexad lahayn ayaan u barbar taaganahay nidaamka dawliga ah ee maamul goboleedka galmudug cid kasta oo amniga horumarka iyo nidaamka dawliga ah ee dowlad goboleedka galmudug ka hor timaadana waa in si wada jir ah meel looga soo wada jeesto sidoo kale wararka dhiilada ah ee ka soo yeeraya magaalada Laascaanood waa wax aad looga xumaado mana aha wax la filayay ficiladaasina waxay lid ku yihiin islaamnimadeenna dhaqankeena suuban ee Soomaalinimo iyo kan bani'aadamnimo intaba sidaas daraaddeed waxaan leeyahay yaan la giijinin xarkaha qaar yaana la goynin waxa la isku yahay ma aaminsani inay bulshada deegaankaasi oo idil isku raacday dhacdadaas waxaase laga rabaa inay isku raacaan inay arrintaas wanaag ku bedelaan oo ay si wada jir ah uga hortagaan falalka noocaan ah ee si kala fogeynaya bulshada xilligan kala guurka waa inaan ilaalinaa hay-adaha dowladda ee sii naafoobaya maalinba maalinta ka dambaysa si ay mas-uuliyad ku dheehan tahayna looga shaqeeyo loona ilaaliyo waa inaan la siyaasadeyn hay-adaha dowladda
si ay u gutaan waajibkooda loona madax banneeyaa howlahooda shaqo sidaas daraaddeed waxaan mar labaad ku baaqayaa in kiiska Ikraan Tahliil Faarax loo daayo hay-adaha ku shaqada leh ee garsoorka si ay qoyskeedu u helaan cadaalad ay ku kalsoonaan karaan ugu dambeyntii qarankeenu maanta qaaraanka uu u baahan yahay waa khilaaf la'aan waa qorshe loo dhan yahay waa qadarinta waqtiga iyo qabsoomidda doorasho xasiloon intaas waa inaan ka dhiganaa mabda'a xilliga kala guurka ah si loo badbaadiyo dalka iyo hay-adaha dowladda ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waa mahadsantihiin